shirka hadda halka lagu soo gabagabeeyey wuxuu ahaa shir muddo laga soo shaqeynayo. Shirkan waxaa soo qaban qaabiyey dowladda Ingiriiska, midowga Yurub, Bangiga Adduunka, Hay'adda Lacagta Adduunka iyo Soomaaliya. Shantaas isugu nimi la soo qaban qaabiyey waxa markaa lagu cazumay oo ka soo qayb galay wadamada deymaha ku leh wadanka iyo ururada waaweyn sida Bangiga Adduunka, Hay'adda Lacagta Adduunka, Bangiga Afrika, Hay'adda Lacagta Carabta, Bangiga Islaamka iyo dad kale fara badan. Waxyaalaha looga hadlay waxay ahayd maadaama aan ku jirno gabadii ama qaybtii ugu dambeysay arintii deyn cafiska Soomaaliya in aan fiirino bal dadka deyntan ugu leh meeshii taagan yihiin waqti maadaama soo dhawaaday xaaladoodu waxay tahay iyo inay dawladda deynta la cafinayaan kale. Sidaad ka aragteen qolo walba hadashay waxay cadeysay marka hawshan soo dhamaato inay diyaar ka tahay inay nagala hadlaan deynta sidii lagu dhameystiri lahaa cafinteedii. Marka arintaas ku saabsanaa ra'iisul wasaaraha ka hadlay oo si faahfaahsan uga hadlay talaabooyinka la soo qaaday isbedelada wadanka laga gaaray dhinaca maamulka maaliyadda dhinaca amniga shaqada hadda ku socota iyo waxyaalo fara badan oo dhaqaalaha wadanka ku saabsan. aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay dawladdan waa lagu ammaanay oo aad maqlaysaan urur walba iyo wadan walba hadlay wuxuu aad iyo aad u taageeray oo u ammaanay shaqada wadanka ka socota iyo talaabooyinka dawladda qaaday arrintan ku saabsan. waxyaalaha ugu waaweyn ee la ka rabo hadda noo haray waxa weeye lixda bilood soo socota in sidaan xukuumadda hawsha ku socoto dib looga noqon in la dagaalanka saboolnimada istiraatiijiyadda dawladda kala ahaan lahayd iyo qorshe qaranka sagaalaad oo isku jira oo dhameystiran la dhameystiro sanadkan iyo in dadku sidan oo kala wadamada deymaha nagu leeyahay la wargeliyo loo sheego xaaladda markasta marayso. Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka shirkooda dambe ee isugu yimaadeen dadka xukuumada boardka shirkooda halka marka go'aankii lagu qaato go'aan qaadashadii baa soo dhawaatay. go'aan qaadashadaasina waxay noo furaysaa albaabo fara badan oo wadamada hadda arkaysan Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska iyo wadamada waaweyn oo dhan lacagaha nagu lahaa kulligood ka hadleen meesha yiraahdeen go'aankaas aan qaadan doonaa haddii aan leedmo. go'aanka marka la qaato marka waxa noo furmay xiriirkii aan la macaamil lahayn adduunka iyo hay'adahan waaweyn Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka oo markaa noqon lahayd Soomaaliya wadan si loo siiyo markaa wax la yiraahdo creditkeedii dib loo hagaajiyay ama deyn cafiskii deyn loo ogolaan karo hadda wax ka dambeeya. marka processkaas aan bilowday oo gabagabadii bisha akhirkeeda waxaan ku heshiin doonaa lixda bilood soo socota si loo wada shaqeyn lahaa si loo dhameystiri lahaa shuruudaha inta dhiman. sharciye waxaa jira la rabo in baarlamaanku ansixiyo dhowrka sharciyo shuruudo ah Soomaaliya deynta loo soo gabagabay deyn cafiska dhowrka sharci oo sharciga hanti dhowr ka mid yahay sharciga maaliyadda ka mid yahay sharciga cashuurka ka mid sharciyo noocaas oo dhowr ah ayaa shuruudda ku jira. inta kale waxa way waa laga heshiiyay la dagaalanka saboolnimada iyo qorshaha qaranka la qorona hawshiisa waa socota wada tashiga wadanka hore ka socda. marka meel fiican maanta maalin weyn baahayd wax fiican baa la qabtay. laba sano ka markii la bilaabay dadku xataa ma arkeen arrintan macquul ka tahay Soomaaliya sanadka hor dadku waxay islaayeen Soomaaliya heerka ma soo gaarayso. maanta waxa la taagan in la yiraahdo loo hambaleeyo dawladda aad iyo aad ku hambaleeyna waa wadamadii deyn cafiska soo maray wadanka ugu degdegsiyaha badan si loo deynta looga cafinayo ama ka soo baxay shuruudihii oo dhan ka soo baxay 18 shuruudood ayaa hadda ugu dambeeyay sanadkan 18 shuruudood kulli waa ka soo baxay bisha saddexaad 13 kan halkar lixda bilood soo socda waxyaalahan kooda hal lahayn ayaa socda. tiina waxa weeye waa bishan ku heshiin hadaalad maakhirkeeda waa dhamaatay markaas hawshaas waxa la gaaraya waqti go'aan qaadashadii hawshan sidaan u wadayna dadaalkan waa si laba laabeena waxay doonayeen laga wada hadlo sidii bal deyn cafiskii processkii Soomaaliya waxaan sameeyay hadda ka bacd lacag Bangiga Adduunka maqlaysa lacag 140 milyan ay yiraahdaan siinayna hadda sanadka lacagta Hay'adda Lacagta Adduunka waxbay soo wada wadamada deymaha nagu leh markii deynta cafiska la gaaro waqtiga dhamaado sanadkan insha Allah inta ka hadhay in marka ayagana furmaan leeman cusub oo wadanka dhaqaale loogu raadinayo. marka runtii meel wax fiican baa socda. shirarkan aan nimidoo dhani waxay iskugu soo ururayeen waxa weeye kan iminka aan ka soo baxnay oo kala yiraahdo round table-ka Soomaaliya loogu talagalay oo ay ka soo qayb galeen dadan xad lahayn yani sidii aan anagu filaynay ka sii fiicnaaday oo roomkii meesha aan ku jiray buuxsantay oo cid waliba daneynaysa inay ka hadlaan oo ka wada hadleen waxay isugu yimi cid alla cidii waxay nagu lahayd deymihii aan ka hadli jiray nagu lahayd baa isugu yimi ama wadanada ha noqdaan wadanada Paris Club la yiraahdo ama kuwa Carabta ee Paris Club la yiraahdo ama IFIs ka kuwa la yiraahdo baananka giddigood halkan way isugu yimaadeen
ra'iisul wasaaraha ay khudbadiisii dhageysteen iyaguna khudbadoodu bay akhriyeen macnaheeduna yahay halkay Soomaaliya taagan tahay iyo waxay iyagu u malaynayaan meesha aan taaganahay annagu waxbaan isku malaynaynaa iyagu maxay u malaynayaan iyagu waxay u malaynayaan inaan shaqo wanaagsan soo qabanay giddigoodna waxay isku raaceen in Soomaaliya deynta cafinteeda la galo la gudagalo oo la iskaga yimaado oo Soomaaliya wixii looga baahnaa ee aan ku heshiinay sanadkiina dhaafay bishii 3aad maanta waa bishii 4aad oo aan ku heshiinay in Soomaaliya ka soo baxday ayaa la iska daba hadlay oo la iska daba qaatay oo la isku raacay sidaa daraadeed in support ama caawimo Soomaaliya loo fidiyo sidii deynta looga cafin lahaa taladeeda la galo ayaa halkan ku soo gabagabowday aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay shaqo badan baa weli noo hadhay runtu sidaa weeye laakiin waxaan isku raacsannahay Soomaalidu hadday gacmaha isqabsato hadday iyagu isku tashato inay isku tashan karto Soomaaliya sidii loogu ahaan jirtay inaanay ahayn baa la isku raacay in wixii ay yidhaahdeen waan qabanaynaa ay qabteen baa la isku wada raacay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan isku tashanno kharash lacag badan baa linagu leeyahay in laynaga cafiyana dadaalkeeda waa ku jirtaan waxaa ku jira dadka cashuuraha bixiya waxaa ku jira dadka nala soo hadlay yidhaahda khayr Allah idisiya shaqada wada waxaa ku jira dadka registrationka gala ee faraha iska qaada qaanuunka toosan doonaya inay ku socdaan ayaa ku jira waxaa ku jira dawladdeena iyo dadkii danaynaya arrintan in hore loo mariyo baa ku jira marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxa weeye rajada muuqata deynta waa laynaga cafin doonaa laakiin inagu aynanu isku tashanno sida wadannada kale ayaa loo baahan yahay inaan garbaha isqabsanaa loo baahan yahay in qof walba mas'uuliyadiisa ka soo baxo ayaa loo baahan yahay annaga mas'uuliyadda saarayna waxa weeye wixii dadka Soomaaliyeed ay noo dhiibaan ee ay nagu aaminaan tabtaa ay noogu aamineen sida maanta dadka halkan isugu yimid baa yidhaahdeen tabtaa ay noogu aamineen iyo wixii aan ku heshiinay inaan ka soo baxayno ayaa anaga la nagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa waxa weeye dalkooda dhismihiisa inay qayb ka qaataan ilaa aan inagu kharashka inagu baxaya iska bixino oo aad jeebka ka soo saarto bariyo meel kuma gaarsiiso wali waxban baryaynaa waxba badan ma inaga dhiman deyntii laynagu lahaa waa laynaga cafin laakiin dhaqaalaheena iyo wadankeena cid kale hore u marin kartaa ma jirto caawimo yaroon waxa lagu siiyaa at the end of the day waxay tahay waxa weeye inagu inaan isku tashanno oo aan hore u wada soconno oo qof walba mas'uuliyadda u leeyahay ee xeerka Soomaaliyeed iyo distoorka Soomaaliyeed qorayo qof walba waxa xaq loogu leeyahay haddii kale nation ma noqon karin daadis anigu waxaan Soomaaliyeed u tilmaamaa weeye marka taasaan isku ognahay anagu xaqayaga waxaan ka soo baxaynaa wixii alle nagu ogyahay sharcigu nafarayo distoorkeenu nafarayo dadka Soomaaliyeed nagu aamineen ayaan ka soo baxaynaa waana ka soo baxnay adduunka iyo Ilaahayba waa nooga marxaati iyagana waxa laga rabaa marka inay caawimada dawladda ay siinayaan inay wadaan oo wixii lagu leeyahay bixiyaan waxa lagu leeyahay muxuu yahay wax walba la sameeyo adduunka wax yar baa laga qaadaa wax yar oo aan badeen qofkana dhibeen baa laga qaadaa ama cashuura lagu sheego ama customer lagu sheegay waxyaalo yar oo kale wax kastaba ha lagu sheegay dawladdu lacagta waxay ka keentaa waa dadku wax soo ururiyeen marka waxa la soo ururiyay halkaan inagu taaganay aad bay hooseysa marka adduunyada kale iyo wadanada agagaarkeena aad u dhigto waxaan soo ururina wax yar weeyaan wixii la nooga baahnaa soo ururina weeyaan annagana xisaabta maan diyaar u nahay marka really sheekada inaga dhaxaysa annaga dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waa taaway waxa xigi doona dib baan isku noqonaynaa SMP programkii ama deyn cafiskii geedigiisii halkan waan ka tagaynaa markaan imika Muqdisho ku noqono 25keeda Addis Ababa waan tagaynaa dadka halkan ku shareeyay intooda badan sanduuqa lacagta waxaan tagaynaa hadii Ilaahay yiraahdo Addis Ababa taasaan ku soo dhamaystirayna oo shaqadii soo socotay 12 bilood ayaa soo afjarayna waxa kale oo aan samaynaynaa 6 bilood oo soo socday wixii la qaban lahaa oo qoran baan iyadana keenaynaa taasaa markaa na wadaysa ilaa iyo aakhirka sanadka